binaadku waa saddex nooc inteena wuu iska helaynaa nooc waxa la kokosayd oo qorqorane waa cadaanka carabta hindida inaga axmarada dadkaasa qolana waxa leedahay mongolid indhayar hebelsiina mid boqol baa arksa moogta qolana waa naga waa ragga timaha adag ee tan ka ballaaran kuwaasina way naga buuxaan marka dadka dhalay baynu nahay anigu waxaan aaminsanahay xarfaha lagu hadlo qolo waliba xarf baan karin faransiisku raa ma karo qaab yiraahdaa canfarta waa leeyahay siin ma karto shiin bay tiraahdaa kuwa biirka cadba xa iyo ca ma karaan ma yiraahdaa xaraf kasta afka kara waa Soomaaliga jinsi kasta oo ka guursado ka dhalayana waa Soomaaliga saddexdii nooc ee bini'aadamku waa iyaga soo garanaysid nabiye xawaalaan biyad ma jiraan ummad kasta waxaa loo diraa sheekh muxtaar Soomaali mas'uulkii culimo badan baa joogtay rasuul afkooda kula hadlay soo xaq ugu bayaamiyo ma inaan garaneen xidigiskan odayaasheenu yaqaaneen 18 xaraf higaada carabiga alif laaya waa 18 goda waa quraankii oo samada lagu faagalay rasuul Soomaali way jireen laakiin ma inaan garaneen xilliga ahaa laakiin Ameerikana way jireen laakiin ma garaneen xilliga ahaa waa ilaahay ma ilaahay qoom kasta rasuul ayna dana Soomaaliya khaldana taasi wata hadaba daraasadaha afka Soomaaliga ka sameeyay waxa ka soo qaadan karaa kuwa binaadka laga heli karaa Soomaaliga mooyee waxa kamid ah midaan u baahnaa laba afleen quraanka waxa laga helay suuratul mudaththir aayad ku jirta rabbika fakabbir haddaan dib u akhriyo waa rabbika fakabbir bariyaano dugsiga hoose dhigan jiray aan hor dhigi jiray dib qalooc bahal buu galay aqrab tahta barqa haddaan dib u akhriyo waa aqrab tahta barqa inaga waa dhowr iyo afartan konton eray dad bal dib u akhriya صوتات ما هدي نين دي مغري وانين جوج وجوج غير وغير داد وداد لول اما لول اما لال ساس وكاي جاك يربحري وعقولش يقول احنا كفران سيلس هذا هو سيلس ديكيد هذا هو ديكيد رادار هذا هو رادار إلالي هذا هو إلالي بيفرق بلين سوبلان بافكي كوتشرال afkaliyo karaana ma jiro afka dhalay weeye bini'aadamku geeska afka ka farxameen dhulka buurna loo jiray boosaaso ilaa sayla waa la wada ogyahay qof baan markay tageen qolo kasta in bay ku hadashaa in la weyn loowen ingiriisda ka helay 300 euro af Soomaaliya keenay ku horiyay baan buugaas uu soo socdaa bari hore mar baan taabay afku wuxuu ka mid yahay shanta qodob ee taariikhda laga tiraaco ama archaeological qodob la fahayo carbon 14 lagu eego oo cimrigiisa lagu soo saaro ama written records-ka godqalada xitaa farta geelay oo dhan Soomaali oo dhan nin baa ka qoray bil dhowto Soomaaliya inay ahayd fartiistii Soomaali isticmaali jirtay soo garanaysid midna waa oral tradition oo waxa ku teento ilaa 3 qarni baa la soo qaataa qodaalkii ugu weynaa wuxuu noqday geeska Afrika farta hieroglyph-yada leedahay waa harka qalafay afka Ibraahimtu ku aasha waa Soomaali عربي قديم كايدو من كوريرا ولا تري فارا نضيفه رانا صاروا الله ونحرسته ايا حكور الى كل يشبغوا عربي قديم كايدو ما في صومالي عالي نقطه يا قران كتاب كتبوا داي سو غرمس marka afka dhalay baatiin dadkii ugu qurux badnaa baatiin dalkii ugu qalisana baatiin diintii ugu xaqsanay baatiin waxaan ka naxaa marka la dalka saboolka ma ku yareen reer Yurub biraha le khayraadkoodii dhamaystay baa biraha khayraadka Afrika laga guro inta la warshadeeyo hadana dib loogu soo celiyo ba hoodana miseelaga hoodana waa kuwa inaga dhacday markay baruur waayeen bay inay lama ka haya cadaan iyo xoolaadlaan misay naash noqdeen iska cadaan odeer marka Afrika yimaadaan way isku dilaan laagu ninka ka noqdo Afrika ee guduudta hilibka xoolaha la cadaada soo dhigo soo garanaysi midabka Soomaalidu madow ma ahayn baa waa midabka waa dahabi loo gaari karaan ma jiro malaga baahan waaye daraasadaha loo soo noqonaya afka Soomaaliga waxa kamid ah lamaana isku qabtaan baan u baahnaa mid eray baad sheegaysaa xaraf ku dhamaanaya isla xarafku waa ka bilaabmaya mid eraygi la mid ah waxaan awr maxaa ugu dambeeya rati baa ka bilaabmaya raadi awr rati isku mid ma waxaan hog muxuu ku dhamaanaa god baa ka bilaabmaya hog iyo god isku mid ma saas oo kale habaas siigo guul lib wala kuwaas iyagoo saddex jid wuxuu ku dhamaaday da
dow baa ka bilaabmay jid kala mid ah dow wuxuu ku dhamaaday laftiisu waa wado ayaa ka bilaabantay saddexduna waa isku mid waxaa tiri iyagoo afara waa jira waxaa tiri buuq wuxuu ku dhamaaday qaylo ayaa ka bilaabantay qaadi qaylo waxay ku dhamaatay or baa ka bilaabantay oo qayladii la mid ah marka dambe lexlex bay gaaraysaa dabaal inay nacasadu inagu badnaayeen oo fariidadu inagu yaraayeen afkaynaynu ka helaynaa waayo fariid iyo warac iyo dinac umaynu leenahay doqonkana ilaa dhowr iyo toban marka dabaal qur-aankaa baa ilahay ku sheegay dee oo ilahay baa yidhi akarahum laa yacqiluun akarahum laa yafqahuun akarahum laa yashkuruun badankoodu wax ma oga badankoodu caqli soo garamaysa cayuga ma jeedo lamaanahan isku qabsanan baa ila galay dabaal wuxuu ku dhamaaday la waxaa ka bilaabmay liid wuxuu ku dhamaaday da waxaa ka bilaabmay doqon wuxuu ku dhamaaday na waxaa ka bilaabmay nacas wuxuu ku dhamaaday sa waxaa ka bilaabmay sacsa ama sagagir waa lixda halkaasuu gaaraya lamaanaha isku qabteen waa nooca waana afka soomaaliga mooye afka laga heli maayo xarfaha lamalaamba ee toddobada waxaa ka sameeyey kelmado weero fara badan waxaa ka mid a dulmar gaaban dalamara gaabana dulmar gaaban magaaladan baro boorame nala deg godaalo ma beeran rag maal badan ma rabno dagaal ma rabno gaalada gabar dulman miro gal badan ragba ma duulin marin galbeed iyo qaar kaloo badan deh markaa miyaa loo baahan yahay ereygii ahaa munaane garaadba soo meesha ka bixi maayo automatica waa yahay waxaa jira afka soomaaligu sida uu dhisan yahay afka keliya ee kala sheegi kara hadle iyo lala hadle xagga naxwaha markaynu ka hadlo ama dhismaha afka annaga iyo innaga afan soomaaliya inuu kala sheegi karaa ma jirto annaga markaan leeyahay annaga odayaasha ah iyo idinka dhallinyarada oo kale annaga kuma jiro lala hadlihii soo ma aragtid laakiin hadle iyo lala hadle markay isku jiraan waa innaga caawa madasha joognaa innaga iyo annaga ma kala fahamteen af kala saari karaan soomaaliga ayna ma jiro xagga dhismaha afafkana waadha qodobka raaca soomaaliga waxaan kusoo kobay oo 7 xarafo 3 labkay raacaan 3 dhadiga midna wuxuu raacaa labadaba waa ta iyo da iyo sha waxay raacaan dhadiga ka iyo ga iyo haana waxay raacaan labka aad labadaba way raacdaa in yar bay ka raacdaa dhadiga haydha aad ba raacda waa dhadig haydha saas oo kale feedha laakiin labka daaha suuqa shaaha way badan yihiin labadaasi aadii labadaba way gashay taadu waxay gelaysaa dhadiga keliya lugta beerta gacanta bidaarta saas oo kale daadu waa maxay labada saas oo kale lamada gabada daabaa raacday waa dhadig shaaduna wax kastoo la ku dhamaada ama shaabaa raacdoo dhadigaysaa ama qodobka kaabaa raacoo labeeya laba gaada maroodiga guriga saas oo kale xoogga kaad waxay raacaysaa matalan ninka maska ceelka saas oo kale 7 marka erey baan u bixiyay koobaya ta ka ag hadasha waxay ka ag hadlaysaa magaciide ku qodban tahay ta ka ag hadasha marka waa tadii iyo gaadii hadasha 7 qodob af soomaaliga saas aan kusoo koobay weedha ta ka ag hadasha waxaa jira oo kale mid laandabar oo xarfaha lama baada iyo maada mooye 5 kaleba gadaalay ka raacayaan yana way badan tahay waa daraasado fara badan buugga afraad baa laga helayaa qodobkana ingiriisiga iyo carabidu wax macnaa ma leh mana sheego qodobka carabiga ah ama almacrifa alifka iyo laamkaasi jiro keli iyo wadarna ma sheego lab iyo dhadigna ma sheego halka keenu ka sheegayo lab iyo dhadig iyo keli iyo wadar labadaba ingiriisiguna waa da keliya the boy wiilka waa intaa keliya laakiin hadday wax fara badan yihiinna waa daadii hadduu yahay wax yarna waa daadii soo garan maysa hortaana soomaaliga waxaa ugu soo dhow talyaanigu wuxuu kala sheegaa qodobkiisu dhammaadkiisu keli iyo wadar iyo lab iyo dhadig sida soomaaliga
وانا صوماليغا عربيغا طليانيغا iyo turkiga waa afarta luqadood ee sida loo yiraahdo loo qoro ingiriisiga xarfahan jirin baad akhriyaysaa ama kuwa qoran baa ama kuwa qoran baa akhriyaysaa marka afarta afar oo isku xignaa talyaaniga loo ogaada waxaan oranaya midna laboro waa shaqo labora waa shaqada taas oo kale fiilyo waa ilmihii la dhalay oo wiila fiilya waa dhadigaadu ya saas oo kale ooduna waa lab oodoodu markay keli noqoto laboro soo shaqo ma ahayn labori iyo bay isu bedeshaa shaqooyin aaduna waxay jamac ku noqotaa talyaaniga ama wadar ragazze bay noqonaysaa waa dhalinyaro fara badan taama la fahmi xaggaad sheegista qodobka ee labka iyo dhadiga ama kelida iyo wadadka talyaaniga isku midna waxayna ka raacaan erey kasta xagga dambe soomaaligana wuxuu ka raacaa qodobku xagga dambe carabda iyo ingiriisiga wuxuu ka galaa xagga hore miskoodna ma sheego keliya wada da waxyaabaha aynu leenahay binaadamka ka duwanaa waxaa ka mid ah dadkan inay cilmi lahaayeen qofka reer miyiga baa tiraa waa jaahil maaha oo yaqaanaa kun wax adigu PhD baad sidataa waxaana af ingiriisi hayna ma taqaanid xoolahaaga haddii hadhub lagu dhibo kontonka alaada ramaga maal ma maali kartid soo garamaysid beerahaaga ma taqaanid diinta haddii lagu weydiiyo qur-aanka infact diinta waa layga badiyaa walsa yaa aqoonyahana waa tahay ilaahay ma taqaanid wuxuu ku faray ma taqaanid wuxuu kugu xoolahaagii ma taqaanid dagaalkaagii ma taqaanid markaa ballinkii reer miyiga ahaa ilaa dabaylaha idaha ayuu eegayaa xilliga sidkoodu garanayaa roobku saadaashiisa yaqaanaa wuxuu ka rarayaa meesha bannaan oo dhan ama xilligay ay iduhu dhalayaan inay diraac ku beegan tahay buu arkayaa wankuu ka xamilayaa masaana uma dhalinba soo garamay uma ramindee dhirta yaqaana ee magaalaanka daweynaya ee af garanaya shanta milsi yaqaana dabaylaha iyo eerarka iyo roobka iyo wax walba yaqaana dhirta intaa kuna geed mid walba ka xoolaha u fiican geynaya la kala habawarnaya anigo mara inta idaha u fiican meesha dooxooyinka la doonayo meesha tigsimaadka riilka kun wax yaqaana jaahil bay ku nil waayo de ingiriis gumaysiga ay naga dhacayeen loo qaadan soo garamis marka waxa weeye afka Soomaaliga waa hodan daraasado fara badan oo ka sameeynay naxwihiisina hadda la qorayaa aniga iyo isbuucan anigu asmay Muqdisho bari baan tagay afso loo sii ducay hadii la haydmo gudiga af Soomaaliga heer qaran baa la dhisaya shaqala badan baa gudiga shaqo badan baa hawsha u taala erey bixin baa rabaa shaqala dhiman baa jira naxwa jira kun waxba hadii la haydmo oo dawladdu baa ka qaban kartaa marka waxa weeye hadday gartay waa ugu hambalyeynaa wixii talooyin loo keenaa idinkuna noo soo ducaynaysaa wixii su'aalaha waa ka jawaabaynaa wixii aan ku khaldamana iga raalli ahaada